saraakiil ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tababar u qabtay shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ka howlgala magaalada Berbera. Tababarkan oo ku saabsanaa ka hortagga xanuunka corinavirus ee ka dillaacay waddanka China. waxaana mas'uuliyiintu sheegeen inay heegan u galaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ka howlgala magaalada Berbera maadaama ay ku taala dekadda weyn ee caalamiga. ugu horreyntiina waxaa tababarkan faahfaahin ka bixiyay madaxa fayadhowrka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiwahaab Nakruma iyo madaxa gurmadka iyo ka hortagga wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cumar oo qaybtii loogu tala galay ama gurmadkii kooxdii u socotay ay halkan ka wadaan tababarkii la tababarayay dekadda halkan dekadda ku taala si aynu ka warqabno xanuunkan corinavirus ee wasaaraddu maalmahan oo dhan u diyaar garoobaysay ay ku jirtay haddii ka soo bilowday meesha lagu yiraahdo garyacowl wajaale airport Hargeysa maanta halkan la joogaa marka aad waxaan ugu faraxsanahay runtii gobol ahaan sida ay u diyaar garoobeen ee loogu diyaar garoobay coronaviruska oo ujeedadu tahay entry point-ka badda oo halkan ah kuwa kale waxay hayaan ama cirka ama dhulka kan waa kii badda ayaan maanta u joognaa oo Berbera ah sidii ay saaxiibaday sheegeen ujeedadan aan maanta u joogno Berbera waxa weeye inaan horta marka hore qiimayno bal dekadda Berbera sida la inooga soo galo dad baa inooga yimaada ka soo dega Berbera dekadda Berbera ee waddanka soo gala marka ujeedadu waxay qiimaynta dadka halka ka soo galaya inta yihiin iyo sida yihiin iyo say u soo galaan marka taas weeyaan qiimayntii hore tag labaadna waxay inaan tababarno shaqaalihi caafimaadka ee ka howlgali lahaa dekadda Berbera si looga hortago cudurkan adduunka imika ka dillaacay ee loo yaqaan corinavirus oo dadka ka soo galaya dekadda Berbera aynu eegno inta aanay soo galin oo aanay qof dadkeena kamida oo reer Soomaaliland intaanay la kulmin waa inay shaqaalaha caafimaadku ka howlgalaan dekadda Berbera oo ay baadhaan oo qofkii lagu arko wixii xanuunka u eeg laga karantimeeyaa gabagabadiina waxaa hadalka soo gabagabeeyay suduwaha wasaaradda caafimaadka Dr. Bashiir Diiriye Jaamac hargabkan Shiinaha ee laga qaylinayo ee caalamka noqday public health issue ama arrin maaragtay caafimaad oo halis gelin karaysa wadamada dhammaan adduunka oo dhan oo hay'adda caafimaadkuna ay warbixin ka soo saartay baryahanna ka warqabtay inay wadamo badan xanuunkan ka dillaacay oo mahad celinaynaa consultantska ama mas'uuliyiintaas aqoon-yahanada sida wanaagsan ee ay tababarka qoraal kale iyo ka hadalka ay noogu soo gudbiyeen wasaaradda caafimaadka ee hor gobol qoraalkii ugu horeeyay ka sameysay 26 bishii koowaad baan ka qornay waxaan u gudbinay maareeyaha dekadaha Soomaaliland baan u gudbinay arrinkan oo ku wargelinayna xanuunkan iyo halistiisa iyo in si buuxda loola shaqeeyo shaqaalaha caafimaadka ee dekadda ka howlgala waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xefo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Berbera xarunta gobolka saaxil